dagaalo badan ayaa u qarxay darteed dhiig badan ayaana ku daatay dawlado ayaa isku dagaalay oo wadamo badan ayaa ku burburay dhaqaalaha dunida ayay ku tiirsan tahay oo waxay laf dhabar u tahay nolosha bini'aadamka geedaha iyo dhirta dhismaha guryaha iyo wax walba oo ku lamaanan noolaha haddaba waxa aan ka hadlayno waa cusbada ama milixda magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba joogtaan soo dhawaada haddaba muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay milixda ama cusbada bal ka waran cusbada aan ku dhanaansanay raashinka dhadhankeedana nagu socodsiiyo cuntada haddii laga waayo dunidan oo idil saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa nolosha bini'aadamka waxay dhahaan cusbada waa waxa ugu isticmaalka badan dunidan uguna faa'iidada badan marka laga soo tago biyaha laakiin helista biyo nadiif ah oo la cabo waxa laga maarmaan ah marka hore in la haysto cusbo haddaba maxaa iska galay helista biyo nadiif ah iyo cusbo iyadana waan ka hadlaynaa cusbada waxaa laga sameeyaa laba elementi oo la isku keenay oo kala ah sodium iyo chlorine haddaba labadan elementi midkood haddii si gooni ah loo isticmaalo meeshaas waxaa ka dhalan karta halis waa ayna ku dili karaan sodium haddii aad ku isticmaasho biyo waxaa ka dhalanaya qarax aad u weyn sidoo kale chlorine haddii hawadan lagu fasaxo waxaa adkaanaysa inaad hesho hawo oxygen ah oo aad neefsato iyadana waa ay ku dilaysaa haddaba labadaas elementi oo halista ah marka la isku keenay waxaa ka dhalatay wax bulshada faa'iido u leh meeshaasna waxaa ka soo baxday cusbo haddaba waa maxay faa'iidada cusbada laga helay ee aan laga maarmin faa'iidada laba ayaan u kala qaadaynaa mid shakhsiyan ah oo jirkeena ku saabsan iyo mid ku saabsan environmentiga iyo bay'ada aan ku noolnahay haddaba cusbada faa'iidada aan ka helno iyo siduu jirkeena ugu baahan yahay waxay jirkeena ka caawisaa kor u qaadista neerfaha dareenka iyo isku socodka xididyada dhiigga in wadnahaga dhiig ku filan uu gaarsiiyo jirka kale waqtiyadii hore inta aan la samayn lacagta dadku waxay wax ku kala bedelan jireen oo isdhaafsan jireen xoolaha ama raashinka tusaale haddii qof uu shaqo qabta ama beer uu qodo waxaa la siinayaa waxa uu qabtay wax u dhigma qiimahooda xoolo ama raashin ha ahaadeen cusbadana waagaas waxay ka mid ahayd waxa ugu qiimaha badan ee qof la siiyo sidoo kale waagaas waxaa loo isticmaali jiray preservation of food waxay dhahaan ama in raashin aad mustaqbalka isticmaali lahayd aad oga ilaaliso bakteeriyada in raashinkaas uu halaabo sida hadda maanta cagsiga loo isticmaalo fridge-ka ama talaagada in cunto la gashto loogana ilaaliyo bakteeriyada sida cuntadaas aad maalmo ama waqti kadib aad u isticmaasho oo aysan kaaga halaabin waagaasna cusbada waxay ku jirtay beddelka fridge-ka ama talaagada hadda maanta la isticmaalo waxaa kaloo loo isticmaali jiray in boogaha lagu dhayo oo looga ilaaliyo in boogta ay infection qaado hadda maanta casrigan iyo dunida aan joogno cusbada waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in lagu dhalaaliyo barafka wadamada qabowga uu ka jiro ee wadooyinka barafka xiray waxaa lagu daadiyaa cusbo si cusbada ay u dhalaaliso barafkana wadada looga xaaqo waxaa kaloo iyadana loo isticmaalaa nadiifinta biyaha oo biyo nadiifa in la helo waxaa laga maarmaan ah inaad hesho marka hore cusbo warshadaha biyaha sifeeya waxay adeegsadaan cusbo si ay biyaha u nadiifiyaan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in laga sameeyo daawooyinka ama waxa ay dhahaan chemical processing sidoo kale cusbada waxaa isticmaala warshadaha waaweyn ee soo saara shidaalka ama naaftada oo cusbada deegaanka waxay u leedahay faa'iidooyin badan oo aanan meeshan ku soo koobi karin bal ka waran haddii jirkaaga uusan helin cusbo ku filan maxaa dhici karo waxaad dareemaysaa daal aad u fara badan matag iyo in maskaxda ay ku bareerto sababtoo ah jirkaaga dhiig ku filan ma helayo haddaba taas cagsigeeda ka waran jirkaaga haddii cusbada ku badato maxaa dhici karo cusbada waxay ku aruuraysaa unugyada waxayna kala xiraysaa xididyada dhiigga qaado taasoo keenaysa wadna qaraac fara badan ugu dambayntiina sababayso heart attack ama in wadnahaga uu istaago saynis yahanada waxay sheegeen in bini'aadamka jirkiisa ay ku jirto cusbo dabiici ah oo Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku abuuray cusbadaasna qiyaas ahaan waxaa lagu sheegay 40 qaado cusbo ah ama 4% culayska jirkaaga cusbo u dhiganta in jirkaaga laga helayo haddaba cusbada sida dabiiciga jirkaaga ugu jirto siyaabo kala duwan ay jirkaaga uga baxdaa mar walba oo ilin ka imaado mar walba aad dhidido mar walba aad suuliga xaaje u gasho cusbadaas jirkaaga way ka baxaysaa waxayna u baahan tahay in dib jirkaaga uu cusbo u helo waxay sheegeen culimada sayniska in qofka da'diisa ay ka weyn tahay 18 oo u baahan yahay 1500 ilaa 2300 oo miligram oo cusbo ah maalin walbo haddaba cusbada si aadan ogeyn ay jirkaaga u soo gashaa mar walba aad quraacato qadayso ama casheyso cusbadaas jirkaaga ayay galaysaa oo waxay ku jirtaa cuntooyinka aan maalin walba cunno 1930 Dr. Robert McNeese oo wax ka dhiga jaamacadda Cambridge ayaa wuxuu soo hindisay research kaasoo lagu kala ogaanayo qofka bini'aadamka ilaa intee la eg ay cusbo u baahan yahay maxaa dhici kara haddii jirkiisa cusbada laga waayo waxa uu soo qabtay 4 mutadawiciin ah wuxuuna ka codsaday in 10 maalin ay cusbada iska joojiyaan oo iska ilaaliyaan cuntooyinka cusbada ay ku jirto dhan maalintii shanaad marka la joogay 4 qof waxay bilaabeen inay istaaga ka dhacaan dhidid aad u badan ayaana ka imaaday kooma ayay galeen isla markiiba waxaa lagu dhuftay faleenba cusbo ah bal ka waran 10 maalin haddii gaarsiin lahaayeen maxaa dhici lahaa
waa ay dhiman lahaayeen taasoo na tusayso in bini'aadamka cusbo la'aan uusan noolaan karin bini'aadamka keliyana ma ahan ee cusbada waxaa aad ooga baahi badan dhirta iyo geedaha intaan anaga u baahannahay ka badan ayay ayaga u baahan yihiin haddii cusbada dunida laga waayana dhirta iyo geedaha waa ay dhimanaysaa dhirta geedaha haddii meesha laga waayana bini'aadamka ma sii noolaanayo oo waxaa yaraanayo hawadii oksijiinta waxaana kor u kacayo carbon dioxide oon sida wada ogsoonnahay bini'aadamku wuxuu bannaanka usoo saaro hawada carbon dioxide wuxuuna qaataa oksijiin sidaas cagsigeeda ayay geedahana u shaqeeyaan iyagana waxay bannaanka usoo saaraan oksijiin waxayna qaataa carbon dioxide haddii geedihi dhirta dunida laga waayo waxaa dunida ku siyaadayso hawada carbon dioxide bini'aadamkana waxaa adkaanayso inuu sii noolaado allah subxaana wa tacaala makhluuqan dunida ku nool oo idil wuxuu u abuuray sabab oo wax walba way isku tiirsan yihiin waana la isku baahan yahay maantana muuqaalkana intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay